السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا إلى فائديسو إلى دقيسو قصة نحمرتي النبي صلى الله عليه وسلم إيو ركانة توكم ركانة بن يزيد ركانة بن يزيد وإن آد قوة وين وإن نكي حلقا عربتا ودن أقحوغ بالناوي ونكي أقحوغ وينا أيها وحي قصة نحمريسا إساقي النبي شرفت بالنا صلى الله عليه وسلم maalin maalmaha ka mid a rukaana iyo waxaa kulmay nebiga sala allahu calayhi wasalam rukaana waxaa lagu yaqaanay wuxuu ahaa nin bulshada dhexdeeda caanka ah oo xitaa waxaa la tilmaamaa inuu ahaa beriga amiir waadi dhan buu haystay ama magaalo dhan buu haystay amiir buu ahaa wuxuu ahaa nin aada u quwad weyn oo u xoog badan ninkaasi weligii dhinaciisa qof intuu legday dhinaciisa dhulka ma taabsiin weligii lama legdinba dhulka lama dhigin waa nin iskibriyey kibirka intuu ka batay isu qaadan waayey nabiga sala allahu calayhi wasalam baa u yimid wuxuu ku yidhi rukaanow miyaadan alle ka baqanaynin oo aadan rumaynin waxa aan sido risaaladan aan xambaarsanahay ee aan idiin sido mid rumaynaya miyaadan ahayn markaasaa wuxuu yidhi maya ma rumaynayo waayo haddaan ogahay inaad nebi tahay waan ku rumayn lahaa laakiin maba ogiba kibirkiisa bal u fiirsada nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi haddaba haddaan ku legdo oo aan dhulka ku dhigo ma i rumaynaysaa dhil baa lakala qoranaya waxaa la yidhi haddaan ku legdo oo aan dhulka ku dhigo dhinacaaga aan dhulka la taabsiinin haddaan dhulka taabsiiyo ma qiraysaa inaan nebi ilaahay ahay isku awoodna manihin waad arkaysaa laakiin haddaan dhulka ku taabsiiyo ma qiraysaa rukaana wuxuu yidhi ha waan qirayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam dhulkuu taabsiiyey daqiiqad buu dhulka ku dhigay ninkii xooga weynaa ninkii intuu u qaadan waayey uu is eegay boorka iska jafay buu wuxuu ku yidhi warma adiga ima dhigin wallaahi adiga ima dhigin buu yidhi ee ii celi mar kale nabiga waa u celiyey sala allahu calayhi wasalam dhulkuu dhigay haddana wuxuu yidhi adiga imaadan dhigin ee awooddaada ma aha tani waa awood kale ee ii celi wuu ugu celi nabiga sala allahu calayhi wasalam marka saddexaad dhulkuu dhigay haddana rukaana wuxuu yidhi ii celi mar kale nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kuu celin maayo ilaa aad ilaahay rumayso weliba waxaa la tilmaamaa mar kastoo nabiga uu dhulka dhigayey ama uu la legdamayay rukaana 100 halaad buu ka qaadanayay rukaana wuxuu dhigayay mar kastaba 100 halaad 100 neef buu halkaa dhigayay 100 neef oo ari ah 3 jeer baa min 100 laga dishtay haddaba markii afraad nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi xoolahaaga ma raba ilaahay ma rumaynaysaa bal intaan oo keliya maaha intaan wax ka weyn haddaan ku tusiyo ilaahay ma rumaynaysaa buu ku yidhi rukaana wuxuu yidhi haa maxaad i tusin rabtaa markaasuu yidhi geedka halkaa ku yaalla ma aragtaa waan u yeerayaa wuu ii imanayaa marka uu ii yimaado waxaan farayaa haddana inuu dib u laabto halkiisii ku laabto haddaba geedka haddaan hortayda keeno uu ii yimaado i maqlo oo haddana aan dib u faro inuu u laabto oo halkiisa ku noqdo ma rumaynaysaa inaan nebi ilaahay ahay markaasuu rukaana yidhi haa waan rumaynayaa nebiga geedkii halkaa yaalay buu u yeeray geedkii halkaa ku yaallay hortooda ku yaallay buu u yeero ku yidhi kaali geed yahow geedkii baa soo socday u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam mar allala markuu u yimid baa nebiga wuxuu faray haddana inuu geedkii dib u laabto halkiisii ku laabto geedkii baa laabtay halkiisuu ku laabtay markaasaa rukaane wuxuu yidhi sheekadan waa waxaan loo qaadan karin reerkiisuu ku laabtay reerkiisuu u sheegay dhacdadii dhacday wuxuu yidhi saaxirada ka weyn baan soo arkay subxaana allah nebigu sidaa ku leeyahay laakiin goor dambe waxaa dhacaysay inuu soo laabto uu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah وأشهد أنك رسول الله وحان قرية معبود حق لقو عابدون الله هين إنو سنجرين وحان قرية أذيقا إناتا النبي إلهي سبحانه وتعالى مركزا ركان هلكي وكو إسلامي ركاني نكي حوغا وينا أن ودي سدين على تفسيرين هلكا سوكو إسلام هلكا محاك قاعد النبي وحو أها قيسي وحو أها شجاع وحو أها هقامي asalkiisii wuxuu hoggaan ku noqon lahaana geesinimadiina leh sala allahu calayhi wasalam biabii wa ummii
nabiga sala allahu calayhi wasalam bal u fiirsada geesinimadiisa ayuu kusoo islaamiyey ninkii ugu quwada badnaa ugu xooga badnaa ee xilligaa carabta ay lahayd, rukana binu yaziid. rukana waxaa la tilmaamaa inuu dhintay 42 ama 41 hijriyada, xilligii mucaawiye kadib ama xilligii mucaawiye ayaa la tilmaamaa inuu markaa rukana uu dhintay. nabiga sala allahu calayh hoggaan geesi ah ayuu ahaa, risaaladiisana qaab kasta iyo fursad kasta uu ku helo ayuu u gudan jiray, hadday geesinimo tahay, haddii jaanis markaa kasoo horbaxay uu yahay, hadday cilmi tahay, hadday xujo tahay, ilaahay baa mar walba garabkiisa taagnaa, ilaahayna aad buu ugu kalsoonaa. nin laga cabsado oo dadka ay heybadaystaan buu nabiga dhulka dhigay 3 goor weliba sala allahu calayhi wasalam. ku saliya nabiga, sabscribe gareeya, sheekadana la wadaag walaaladaada. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.